Assalamu calaykum caruurey ku soo dhawaada sheeko xiiso badan. Beri baa waxaa jiri jiray caruurey quraanjo aad u ooman. Waxayna aaday webiga si ay biyo uga soo cabto. Laakiinse iyadoo biyihii cabaysa ayay si kadis oo lama filaan ah ugu sanbiriiraxatay webiga. Markaas ayay caruurey webigii ku dhacday. Icaawiya ayay ku ooysay. Laakiinse nasiib wanaag wax maqlay qaylideeda ma jirin. Shimbir saaran geed webiga agtiisa u dhow ayaa aragtay quraanjadan maskiinta oo dhiban. Si dhaqso leh ayaa shimbirtii waxay geedka ka soo goysay caleen, waxayna ugu tuurtay webiga dhexdiisa. Quraanjadii waxay kortay caleentii, waxayna u mahadcelisay shimbirtii badbaadisay nafteeda. Maalmo kadib, shimbirtii oo geed saaran ayaa quraanjadii waxay aragtay ugaarsanaya shimbirta geedka saaran. Quraanjadii waxay ogaatay shimbirtii saaxiibteed ahayd inay khatar ku jirto. Si dhaqso leh ayay lugta uga qaniintay caruurey. Ugaarsadihii xanuun ayuu la ooyay. Caruurey, fallaartii ugaarsadaha waxay garab martay isla markaana quraanjadii waxay badbaadisay shimbirtii. Shimbirtii waxay u mahadcelisay quraanjadii badbaadisay nafteeda. Waxayna noqdeen saaxiibo isjecel oo weligood saaxiibo ah. Caruurey, ulajeedada sheekadeena waxay tahay qofkii abaal galo ayaa loo gudaa. Asxaabey, channelkayga subscribe ii saara. Aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina.